بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan ka salaamayaa ummadda af Soomaaliya ku hadasha meel ay joogtaba siba ummadda reer Somaliland anigoo ku hadlaya afka xukuumadda United States of Somaliland. waxaan doonayaa inaan ka hadlo laba arrin. mid waa abwaanada Naciima Qorane, midna waa arrin ku saabsan xukuumaddayada oo ra'iisul wasaaruhu u baxayo magaalada Muqdisho ama Soomaaliya arrimo howlo naga dhaxeeya aawadood. haddaan ku horeeyo marka hore inanta la xidhay ee abwaanada ah ee lagu xidhay xamar baad jeclaatay. waxaan doonayaa inaan u sheego ummadda marka hore Somaliland 3 gobol oo kaliya baa laga qaaday wixii la oran jiray aftida 30% ayaa yiri waxaanu doonaynaa in Soomaaliya la nabadeeyo oo aan Soomaaliya ka tirsanaano. waxa la yiri 80 tira loo malaynayo ilaa gobolada laga qaadin Awdal iyo Sool iyo laga qaadin Sanaag bari oo iyaga aanu garan karno tirada ay tagi lahayd markaa. waxaad ogaataan horta 20% ama 15 badhaho inay dalka joogaan markaana ay diideen in Somaliland go'do xaqna u leeyihiin fikradooda cidina ku xidhin foodkana ku rideen ay joogaan dalka kuwaas horta inantu ka mid tahay haddii sharci la raacayo. talabaad waxaa jooga dalka Soomaaliya oo aan uga digaynaa ummadda Soomaaliyeed ee koonfureed. waxaan uga digaynaa oo u sheegaynaa in rag wasiire ahaan jiray, rag baarlamaanka ku jira, guriga sare ragga ka madaxda intuba inay u shaqeeyaan maamulka ama jabhadda qoriga sidata ee ku haysata afduubka iyo boobka ku haysata Somaliland. ragay u soo dirsadeen khalkhalgelinta iyo nabadgelyo abuurka Soomaaliya iyo dadka masaakiinta inay khalkhalgeliyaan oo u adeegsadaan waliba dawlado shisheeye. rag wax aan ku magacaabi karo double agent. waanu idinka digaynaa ummadda Soomaaliyeed. annaga iska warhayna maanta waanu idin sheegaynaa ragga baarlamaanka idin soo galay ee dawladdan waxaan leeyahay jabhadan yar ee boobka ku haysata Hargeysa ee kulmiye la baxday ay idin soo dirsadeen oo baayic mushtari leh oo siyaasiyiin leh oo guriga sare ku jira oo ka shaqeeya nabadgelyo darrada dadka masaakiinta ee xabaddu ay dhex taagantay maalin walba oo idinku dhex jira. waanaanu sheegi doonaa iyagoo liiskaraysan oo bruufkoodii wata ayaanu idin keeni doonaa insha Allah. inta iyadoo dhowaan waqti dhow ayaanu idin soo sheegi doonaa magacyadooda iyaga oo register garaysan iyo waxay u qabtaan ee ka qabtaan dalka nabadgelyo darrada iyo ka abuura khilaafka dalka Soomaaliya. ummadda Soomaaliya taasaan iyada uga digaynaa oo u sheegaynaa inanta intaasoo qof baa xamar tegey. xamar maaha dembi. wasiirad arrimo dibadda waxa ahaan jiray jabhadda u ahaan jiray arrimaha dibadda taga oo ka yimaada. buur madow waa ugu dambeeyey. suldaankiisii guud baa ka horreeyey oo xamar ka degay oo ka soo noqday oo madax dhaqameed kula soo shiray. waxay intaaba ula shirayeen ay u socdeen khalkhalgelinta iyo ka soo saxeexashada forgery faambada lagaga soo saxeexdo hay-adaha adduunka iyo kuwa maafiyada ee dalka iyo dadkaba ku soo duulay macdantooda iyo baatroolkooda dekedahooda iyo madaaradooda ku soo duulay. kuwaasi way ka soo degaan. buur madow baa ugu dambeeyey isaga oo iska maslaxaya arrinta ay ku qaadeen doonayaan hol inay ku saydaraan oo shirkado ajaaniba ay ka gurtaan halka macdanta iyo baatroolka inuu iska maslaxo oo iska soo maslaxo Puntland iyaga oo dadkii reer Somaliland ee ay isku dhiig ahaayeen ku laayay xoogna ku haysta jabhadaasi. jabhadda yar ee jeegaanta la baxday isagoo isku dayaya inuu iska soo maslaxo. afkiisa wuxuu ka yidhi siyaasiyiin baa kala qoqobtay isaga oo baabul munaafiqi ay ku caanbaxeen ee expertka ku ahaayeen
ummadda u sheegaya shalayna lahaa dhiiggoodu waynoo xalaal reer puntland iyo reer soomaaliyaba khudbaddii ka horraysay buu lahaa dhiiggoodu waynoo xalaal waa in sida ayax loo laayo ayuu lahaa shiru ka qayb galay maantana waa maqlaysa wuxuu ku hadleeyey taas iyadu dadkaasi waa og yihiin ku dheeraan maayo laakiin inantaa waxaanu leenahay iyo kuwii ka horreeyey wariyayaasha ahaa kuwii baayic mushtariga ahaa iyadoo buur madow lagu soo dhoweeyey kuwii la midka ahaa iyo hablihii la soo shiray ra'iisul wasaaraha iyagoo xaq u leh dal soomaalida inay tagaan jaarkooda walaalahooda xaq bay u leeyihiin laakiin lama xidhin markay yimaadeen balse waxaa lagu xidhay wariyayaasha iyo inantaa yar iyo kuwo la mid ah oo deegaan ka soo wada jeeda taa waxaan u aragnaa isirnacayb baan u aragnaa isirnacayb fogaaday oo xumaaday oo ragaaday oo ayaan u aragnaa in lagu xidhayo oo intaa kuwaan lagu raadsanayo in beel ahaan iyo cadaawad ay u adeegsanayaan jabhadda yar ee u afduuban tahay hargeysi taasaa inanta lagu haysta dembi kale may gelin wax kalena may samaynin balse waxaan idiin sheegaya maanta halkan idinka sheegaya somaliland 80% way israacday united state of somaliland bay la baxday 15% bay ka tihiin dhawaan waynu isugu imanaynaa cidna celin karaysaana ma jirto ciddan ka kii qabanaysaana ma jirto annagoo aan xabad iyo dagaal la imanaynin ayaan annagoo 80% maamulka yar ee maafiyada ku qaadateen annagoo 80% dalka idinla joognaa maantana gudaheeda idinla joognaa madaxtooyada dabadeedana joognaa gobol walbana joognaa maantadan aan idinla hadlayo waxbana aydan ka qaban karin waa dadkii dalka lahaa ee dalka lahaa weeye ee hargeysa iyo boorame iyo laascaanood iyo buuhoodle iyo burco iyo sanaagba u dhashay weeye dadka aan idinkala hadlaya waana 85% anagu haddaanu xukuumadda nahay annagaa xamar ka degayna kismaayana anaa tegaya anaa puntland tegaya waxaan u tegayaa waa walaalahayo hawaa naga dhaxayso bad baa naga dhaxayso dhul baa naga dhaxeeya dhiig baa naga dhaxeeya intaaba waanu ka wada hadlaynaa annagoo 2 state ah ayaanu ka wada hadlaynaa waxaanu wada hadlaynaa waa kuwa noogu dhow dad waa kuwa nala badbaadin kara maanta maafiyooyinka ku soo duulay dalka yaga iyo waxa ku soo duulay ee ay kula shuraakoobeen jabhadda yar ee qoriga seetay hargeysa joogta ee qabiilka ku salaysan iyo qabyaaladda iyo eexda iyo boobka iyo dhaca ku salaysan iyo xaqdarrada kuwaas iyo kuwa dibadaha ka soo duulay inaynu ka badbaadino dalkan iyo dadkan Soomaaliyeed Somaliland anagu Englishta ma aqaano laakiin waxa aan aqaanaa Soomaaliga waxay ku tahay dhulkii Soomaaliyeed ama inay Soomaali dhulkiisii anigu af Soomaali baan ku hadlayaa waa inay Soomaali dhulkiisii meesha aad u taqaanaan English Somaliland waanu ka badbaadinaynaa dalka waanu wada badbaadinaynaa waanu iska kaashanaynaa Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed ama kilalka shanaad ha ku noolaatay ama Djibouti ha ku noolaatay waanu ka badbaadinaynaa bad iyo bariba lagu soo duulay waanaanu iska kaashanaynaa waanu ka wada hadlaynaa sidii aanu u badbaadin lahayn annaguna u kala badbaadi lahayn iyagana u kala badbaadin lahayn sidii aanu offer ugu samayn lahayn ama ugu deeqi lahayn annaga oo midaysan oo reer Somaliland inaanu u tagno oo heshiisiino oo wixii khilaafa dhamayno wixii aan wanaagana u geyno laba ummadood oo walaala oo isku dhiiga oo isku dhaqana oo iseedi iyo iraabti iyo habrawadaad isu aanu is-agno naalo oo sidaa Scandinavianka aanu bilaa xuduud ahaano taasaan idinka ballan qaadaynaa waanaanu tegaynaa xamar waanaanu ka hadlaynaa ummadda reer Soomaaliyana waxaanu leenahay idinka walaaladaya ah idinka annagu cid kale walaalo ma nihin jaar baanu leenahay dawladda jaar waanu ixtiraamayna haddayna ixtiraami waayaan waxaanu leenahay laba nation inay is ixtiraamaan baa wanaagsan oo jaare ay yeeshaan xidhiidh wanaagsan wixii intaa dhaafsiisani xagga iyaga kama shaqayn doonaan kamana shaqeeyaan in respect baan u haynaa jaararka walaaladayada Soomaaliyana waxaan u haynaa ixtiraam dheeraad waayo walaalaa noo dhiig baa naga dhaxeeya waxaan ku soo gabagabeynayaa intaa waxaan u sheegayaa groupka yara ee u afduubantay hargeysa waanu idinku imanaynaa oo isugu imanaynaa dalka kuwa dembiga ka galay sayid maxamed cabdulla xasan iyo boqortooyada sharafta leh ixtiraamku naga dhaxeeyo ee reer Puntland reer Keenadiid inta qof Soomaaliyeed nool yahay waxaanu leenahay dembi bay ka galeen ilaa inta aanu dembiga idinka jarayno idinka harimayno
inta dumarka Soomaaliyeed ee sharafta leh aad ku dalacsiiseen caydooda iyo sayidka caydiisa iyo dumarka caydiisa aad ku dalacsiiseen ku siiseen wasiirnimo buugga uu qoray waynu isaga imanayna la iskana hari maayo intaynu ifka joogno idinka hari mayno aad baan ummadda u salaamaya waxaan kala talinayaa ummadda Soomaaliya ku nool waanu idiin soo gudbin doonaa liiska double agentka ee dhibaatooyinka ugu badan idinku haya iyo khilaafka idinku haya si aanay u degin meeshaasi qaar baa mustari oo ku jira waaweyn waanu idiin soo gudbin doonaa dadka reer Soomaaliland waxaan leenahay war iska kiciya qabyaalad iyo dulmi iyo waxa idin saaran iyo boob iyo dhac iyo qabyaalad iyo iyo calool xumo ayaa idin dul saaran waar iska xoreeya oo iska qabta oo dhiiggiina iyo damiirkiinu ha shaqeeyo halkaa meel loo sii dhaafo maanta ma laha meel loo sii dhaafo oo aa eegataan may xadhin aad baan idiin salaamaya dhammaantiinba ummadda ku nool Somaliland dhammaanteedba